maxaa dowladda Soomaaliya u diiday inay bacrimiso roobka waa madal lagu soo bandhigayo cilmi baaris lagu sameynayo maareynta iyo xal u helidda xaaladaha biyo la'aaneed ee dalka ku soo noqnoqda ay aragtay waxa ay bilowday san lahayd biyaha roobka waxaa soo agaanstay jaamacadda Puntland State waxaana ku martiyay ergeyga gaarka ah arrimaha abaaraha Soomaaliya wasiirro ka tirsan Puntland iyo dadweyne kale bal Soomaalidu sheebay madaxdeedu ay rabtaa inay u xaliso dhibaatadan xaaladda biyo yaraanta dalku waa mid kolba marka ka dambaysa sii kordhaysa sida lagu soo bandhigay xog ururin laga sameeyay jaantuska biyo qabadka Soomaaliya marka guud ahaan isku dar meel kasta in biyo la helo oo waliba groundwater-ku waa source reliable ah in la helaayo waa 50-50 macnaheedu waxa weeye systemka wadanka geological ay u samaysan tahay ayaa wuxuu yahay biyo waxay raacaan ilo fractures leeyahay hadii marka aad fracture-kaas heshid nasiib baad leedahay hadaad weydidna wax biyo ma helaysid taasi marka waxay qayb ka tahay arinta access-ka ah oo ognahay hay'ado badan baa laga yaabaa inay ka waashaan ceelasha qodaan ama ceelasha ka cararaan sababtuna ay tahay in meeshii biyaha laga waayo quality xumada waxa keenaya oo dhibaatada ka imaanaysa waa oo biyaha iyadoo la haysto aan laga faa'iideysanayn mar horta dadka lama baro biyaha gypsum bay ku jiraan biyo hadday mar darro ku dhex jiraan ama dhagaxa la yiraahdo debibka hadduu dhulku leeyahay wuxuu leeyahay markaa biyihiisu waa xumaanaya infrastructure-ka la dhisayo ilaalintiisa iyo maamulkiisa waxyaabaha iyo livestock oo xoolaha markaynu ka hadlayno biyo human consumption-ka kaliya ma xooluhu Soomaaliya abaaruhu iyagoo jiraan way kordhaan haddana biyahana substantive amount biyo badanna way isticmaalayaan iyagana in si qorshaha marka la sameynayo oo baalkii oo kala in la garan karo area-da catchment-ga xoolaha ku nool iyo dadka ku nool iyo biyaha la isticmaali karo xaaladda emergency ka taagan waxa weeyaan waa cuntada iyo biyaha iyo caafimaadka iyo arrintan crisis-ka ay abuurtay abaarta abuurtay sida loo badbaadin lahaa dadka waa qaybta koowaad abaartan oo dee waa iska qadar ilaahay haddana ilaahay nama qabin marka dhibicda roobka la waayo dhulka hoostiisa biyo ku jiraan is up to you capacity-gaaga iyo kartidaada iyo aqoontaada isa la soo bixi lahayd khayraadka ilaahay meel cidlaan nama dhigin waxa weeye khayraadku waa badan yahay laakiin aqoontii iyo capacity-gii baa yar oo markasta xadidaysa arrintaas waxaa lagu xisaabaa inay yihiin wasaaradda c baa la aaminsan b ma aqaan b ama c waxaasaa la dhahaa wasaaradda difaaca wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda gudaha wasaaradda maaliyadda wasaaradahaasaa la yidhahdaa waa wasaaradda qorshaynta wasaaradaha waaweynka sida la yidhahda soo maa laakiin annagoo kaleeto markii la fiiriyo xataa fiiri mindset-keenna wasaaradaha lafdhabarta noo ah inay ka jawaabaan inay abaar imaanin ama ay food security-geena ashuur gareeyaan ama annaga amnigeena qidaa'iga waxay ku jiraan liiska wasaaradaha waxay ku jiraan la isaga tuuraayo qof la leeyahay meeshaan qofkan lagu qaarijiyo gabagabada cilmi baaristan waxaa lagu rajan weeyaa in laga soo saaro dhab xal waara u noqda xaaladaha biyo yarida dalka taasoo marar badan soo noqnoqotay waa cilmi baaris iyo dood ku soo aaday xilligii loo baahnaa oo munaasabka ku ahayd si fiican baa ama haato kooxdii khubradii soo diyaarisay presentation-ka ama haato dooda qaabkii loo dhigay oo labadii panel isaga dambeeyay oo panelkii technical-ka ahaa iyo panelkii siyaasiga ah labaduba si fiican bay u qaada dhigeen aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan is leeyahay intayna caawa joogtay iyo inta daawan doontaaba inay ay ka faa'iidi doonto wax badan waxa badan ay ka tari doonto shaqooyinka inoo yaala oo aan rabno inaan tan emergency-gaana aan ku dul dhisno midda xalka waarana wax weyn bay ka tari doontaa waana arrin u baahan inaan sii joogtayno